dalka Jamhuuriyadda Ireland oo ku yaala cidhifka galbeed ee qaaradda Yurub ayaa la filayaa in la soo doorto labada bisha Juun 2017 ra'iisul wasaare cusub kadib markuu iscasilay ra'iisul wasaarihii hore ee Jamhuuriyadda Ireland Andy Kenny oo imika xilka kusima ahaan u sii joogay ilaa labada bisha Juun inta la helayo ra'iisul wasaare bedela. Haddaba talada xisbiga haya waddankan Ireland ee la yiraahdo Fianna Gael ayaa doorashadiisii ay qabsoomaysaa wiigan waxaana ku loolamayaa ninka asalkiisu Hindiga yahay ee la yiraahdo Leah Fadago iyo ninka kale ee reer Cork ee la yiraahdo Simon Coveney labada nin ayaa doorashada ka qayb gali doona xisbigaasi oo kala noqon doona ama ninka ku soo baxa ayaa noqon doona ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Ireland kaasoo ku guuleysan kara gudoomiyaha xisbiga Fianna Gael ee talada dalkan haya ama ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Ireland. ninka sida weyn loo filayo inuu noqdo ra'iisul wasaaraha ugu cadcad waa ninka la yiraahdo Leah Fadago oo ah xildhibaan laga soo doorto magaalada Dublin oo asal ahaan ka soo jeeda dalkaasi Hindiya. Leah Fadago waa 38 jir aabihii Ashkato 1973 ayuu yimid dalka Ireland oo guursaday haweeney Irish waxaana u dhashay Leah Fadago oo dhakhtar ah. Leah Fadago aabihii wuxuu ahaa dhakhtar yimid dalka Ingiriiska 1960kii laakiin kadib muddo markuu ka shaqaysanayay halkaasi ka guuray oo u guuray dalkaasi Hindiya kadibna 1973 ayuu yimid dalkaasi Ireland halkaas oo uu ku dhashay dhakhtarka la yiraahdo Leah Fadago oo ah wasiirka bulshada ama wasiirka daryeelka bulshada. Haddaba Leah Fadago asalkiisu dalkaasi Hindiya ka soo jeeda 1979 ayuu ku dhashay magaalada Dublin waliba gaar ahaan hospitaalka ay Soomaalidu ku dhashaan ee la yiraahdo Rotunda Hospital oo ku yaala bartamaha magaalada Dublin. siyaasigan la yiraahdo Leah Fadago waxa uu noqday siyaasigii ugu horeeyay ee dalkani si public u qirta inuu yahay gay. haddaba Leah Fadago oo asal ahaan ka soo jeeda dalkaasi Hindiya waxaa loo soo hadalinayaa inuu xisbiga talada dalkan haya ee Fianna Gael uu ka noqdo gudoomiyaha xisbigaasi kadib markuu iscasilay ra'iisul wasaarihii hore Andy Kenny. waxaana loo badinayaa inuu noqdo labada bisha Juun ra'iisul wasaaraha cusub ee Jamhuuriyadda waana markii ugu horeysay ee ra'iisul wasaare ajaaniba uu ka noqdo qaaradda Yurub wasiir. tani waxay dhiirigelin weyn u tahay dadka ajaanibka ah ee waddankan Ireland degan gaar ahaan Soomaalida oo laga filayo in taariikh nololeedkiisa Andy Kenny markaynu eegno ay dhalinyarteenu ama da'yarteenu ay rol weyn ku yeelan karaan siyaasadda dalkan haddii siyaasadda lagu ababiyo carruurta ama inay bulshada dalkani ay dhex galaan. tusaale ahaan ninkan la yiraahdo Leah Fadago markii uu ku dhashay magaalada Dublin 1979kii waxa uu wax ka baran jiray magaalada Dublin gaar ahaan xaafadda Soomaalidu ugu badan yihiin la yiraahdo Blanchestone halkaas oo iskuulka uu ka bilaabay isagoo dhigan jiray iskuulada aan fiiga dadka laga qaadin ee dadka aan waxba haysan ay wax ka bartaan halkaas oo imika ay Soomaali far badan ku nool yihiin. Leah Fadago kadibna wax isagoo iskuul ku jira dugsiga dhexe ayuu halkaasi ka galay qaybta dhalinyarta ee xisbiga talada dalkan imika haya ee Fianna Gael halkaas oo uu lug ku lahaa aakhirkii markii uu qaatay dhakhtarnimada ama waxa uu wali ku lug ku yeeshay xisbiga talada dalka haya ilaa uu isagoo jaamacadda ku jira uu isku soo sharaxay maayar golaha deegaanka kadibna uu noqdayba dhowr sano kadib maayar ku-xigeenka magaalada Dublin ilaa uu ka gaadhayay inuu noqdo TD kadibna wuxuu soo noqday wasiirka dalxiiska wuxuu soo noqday wasiirka muxuu ahaa caafimaadka ilaa imikana isagoo ah wasiirka daryeelka bulshada. Leah Fadago waxa imika uu kula loolamayaa kursiga ninka sida weyn aabihii caanka u ahaa Leah Fadago la yiraahdo Simon Coveney
oo kaasoo imika baarlamaanka 20 xubnood ka haysta halka ka kale uu ka haysto oo Leo Fardago haysto 45 baarlamaana waxaana cad in Leo Fardago uu guuleysan doono sida ka muuqata taageerada ay u hayaan xubnaha baarlamaanka kaga jira xisbigan la yiraahdo Fine Gael haddaba dad badan waxay isweydiinayaan oo Irish maadaama wadankan 100 sanadood uu ka jiray dhibaatooyin iyo saxaxsarado waliba xagga waqooyiga Ireland la oran karo 40 sano dagaal ayaa ka jiro dadka Irishku ay doonayeen inay helaan madax banaani haddana tan waxay u eegtahay in dadka Irishka ay isbedel weyn uu ku dhacay maadaama nin ajaanib ah oo nin ajaanib asalkiisu uu ka soo jeedaa oo Irish ahayn uu noqonayo ra'iisul wasaare tan waxayna tusaysaa in bulshada Irishku diyaar u yihiin in bulshooyinka kale ee la nooli ay qayb ka qaadan karaan siyaasadda dalkooga Leo Fardago markaad eegto sida uu u sharxay doodiisa u dambeysay ee xisbiga Fine Gael waxa uu muujiyay inuu asalkiisu u yahay Hindi una dhakhtar Hindiya uu dhalay isaguna uu qaaday wadadii aabihii kadibna uu dhakhtar noqday laakiin siyaasadda ay ku bedeshay siyaasaddu macnihii ay siyaasaddu ku keentay in uu bedelo fiilkiisii oo maadaama uu siyaasadda uu wax weyn wax ka bedeli karo xagga dhakhtarnimada marka saas awgeed uu u galay siyaasadda haddaba inta barnaamijka mid